بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. شركة شرايد يعني مانتا ku qabanay xafiiska degmada 11 May waxa uu ka kooban yahay shan qodob oo kala ah sidan koow ilaalinta amniga iyo nabadgelyada xoojinteeda qodobka labaad oo ah komishanka cusub ee doorashooyinka heer qaran ee uu ansixiyay golaha wakiiladu oo iyagana taageerayno saddex golaha wakiilada oo qaatay waajibaad dastuuri ah gutay afar madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo arrintan ka qaatay go'aanka uu ka qaatay go'aan raganimo leh niyadana ku taageerayno shan xisbiga wadani iyo hoggaankiisa niyadana kelmad leenahay haddii aan ku horeeyo arrimaha nabadgelyada si aynu ka warqabno arrinta nabadgelyadu waa lama taabtaan waxaan ugu baaqaynaa shacbi weynaha reer Somaliland meel kastoo ay joogaan gaar ahaan magaalada Hargeysa ee caasimadda ah iyo degmada 11 May arrinta nabadgelyadu waxa weeye waa arrin halbowle ah waa waxa uu qarankan ku naaloonayo sidaa darteed aqbali mayno in ay amniga iyo nabadgelyada khalkhaliyaan ama ay waxyeeleeyaan shakhsiyaad aruurtoodii geystay dibadaha ama Yurub geystay oo aanay dalka cidi ka joogin iyo shakhsiyaad kale oo duulaan ku yimid dalkan ka aqbali mayno inay nabadgelyada iyo horumarka qarankan uu ku naaloonayo inay u dhimaan waxaan leeyahay shacabka isku duubnaada la shaqeeya hay'adaha amniga oo ka gacan siiya wax kasta oo lid ku ah arrinta nabadgelyada dhanka ah nabadgelyada ama wax kasta oo ka hor imanaya nabadgelyada iyo arrimaha amniga in aynaan ugu dul qaadan doonin oo aynu ka qaadi doono tallaabo sharci haddii ay tallaabada sharci markaa ku didibsan waayaan gacan bira lagu qaban doonaa haddaan taa intaa kaga gudbo qodobka labaad waxa aanu hambaliyeynayaa komishanka cusub ee doorashooyinka ee uu ansixiyay golaha wakiiladu waxaan leeyahay hambaliyo allana ha idinku asturo xilka la idin idmaday waxaanan odhan karaa waa shakhsiyaadkii ugu habboonaa haddii ay noqoto aqoon iyo haddii ay noqoto waayo aragnimo intaba qodobka saddexaad waxaan iyagana hambaliyeynayaa golaha wakiilada oo gutay waajibaad dastuuriya isla markaana ansixiyey komishanka cusub iyagoo u maray dariiq sharci oo dastuuriya waxaan leeyahay hambaliyo waan ku hambalyeynaya waxa afraad oo aan isna ku hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland go'aanka uu ka qaatay arrintan oo ahaa mid go'aan casiimad iyo raganimo leh oo go'aankaas ay soo dhaweeyeen beesha caalamka iyo maxadada ama institutionska loo yaqaano international leaderships ka oo ah beesha caalamka ama international community-ga iyo international leadership instituteska loo yaqaano waxa soo dhaweeyo aad soo dhaweeyay beesha caalamka iyo maxadada soo saara hogaamiyayaasha dunida ama qiimeeya hogaamiyahana waxa lagu qiimeeyaa decisionka ama go'aanka uu qaato iyo sida uu qaato maaha khalad iyo sax waa arrin kale waa khalad iyo sax taas waxa lagu qiimeeyaa arrimaha kale ee guulaha
la gaadhay iyo waxqabadka ama khataraha ku gadaaman laakiin waxa lagu qiimeeyaa liidarka ama qofka hogaamiyaha ah qaabka uu qaato ama uu u maareeyo arrin go'aan qaadashadiisa waa decision maker marka waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu ka qaatay go'aankii ugu habboonaa waana ku hambalyeynayna haddaan intaa kaga gudbo xisbiga wadanina iyo hoggaankiisana hal baan leeyahay xisbiga wadani waxaan leeyahay ma xisbi dimuqraadi ah mise waa xisbi shuuci ah caalamka laba qaybood unbaa loo qaybiyaa asxaabta waxa weeyaan waa xisbi dimuqraadiya iyo xisbi shuuci ah sidaynu ognahay qaabka uu imika u macaamilayo xisbiga wadani waxay u eg tahay inuu qaatay nidaamka shuuciyadda dimuqraadiga waxa lagu kala badiyaa oo loo maraa dariiq marka wax la ansixinayo ama wax la qaadanayo waa simple majority iyo two-third waxa loo yaqaano hadday noqoto waa cod haldheeri iyo aqlabiyad 3/2 imika arrintan commissionka lagu soo xulay 6 hay-adood oo dastuurku siiyay baa soo xulay 6 hay-adood 5 kamida 3 xisbi 2 gole baarlamaan iyo madaxweynaha waxay isku raaceen 5 kamida waa isku raacay waxa diiday hal oo wadani ah waxa weeyaan haddaynu nidhaahno inuu qiimeyno 99% baa isku raacay hal baa diido dee hal loo joojin maayo waa qodob haddaynu nidhaahno simple majority waa simple majority way ka badan tahayba labadii dariiqee wax lagu ansixinayay dimuqraadiyaddu lahayd midnaba dee wadani kumuu qancin waxa kale oo loo maray dariiq sharci waxaana la horgeeyay baarlamaanku waxay u mareen dariiq sharci oo dastuuriya waana ansixiyeen waxaanay ku ansixiyeen aqlabiyad bay ku ansixiyeen waxaynu odhan karaa 97% baa ansixiyey 3%na waxay isugu jireen in diiday iyo in ka aamustay waa arrin dastuuriya oo dimuqraadiyada markay caynkaa tahay dee xisbiga wadani haddii uu ka baxay oo arrintii dimuqraasiga dee aynu aqoonsano xisbi shuuciya haddii kale ha ku soo dabaalo hanaanka dimuqraadiyadda iyo axsaabta badan commissionkan hadda waxaan dareemayaa in maalmahan ugu dambeeyay maqlaya shakhsiyaad leh hays casilaan xubno ka mid ah sababay isu casilaan ma jirto waa commission sharci ah oo maray dhammaan hanaankii sharci ee dastuur loona maray procedure dimuqraadiyada waxaan leeyahay shakhsiyaadka ku baaqaya is casila waxa weeyaan waa shakhsiyaad wax duminaya oo aan dalkan aan wax dhisayn waxaan leeyahay waa xilkiina iyo waajibaadkiina la idin idmaday ee qaranku idin idmaday guta asalaamu calaykum waraxmatullahi